wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV ku soo dhawaada qodobada wararka idin hayno kuwada ugu doorka roona waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirar xasaasi ah oo Muqdisho ka soconaya ganacsatada qaadka Kenya oo dawladooda ku cadaadinaya in la fasaxo duulimaadyadii Soomaaliya ee la joojiyay midowga Afrika oo ka hadlay go'aankii dawladda Soomaaliya ay ku dalbatay in la bedelo ergeyga midowga Afrika ee dhawaan la soo magacaabay maamulka Somaliland oo u hanjabay dad ay ku eedeeyeen in Muqdisho ka soo jeedaan intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu doorka roona warka iyaga haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan shirar kala duwan oo xasaasi ah ayaa ka soconaya magaalada Muqdisho waxaana shirarkan ay yihiin kuwa u dhaxeeya xubnaha mucaaradka dawladda ka soo horjeeda iyo sidoo kale xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble mucaaradku waxa ay qaadayaan tallaabo ay doonayaan inay ku dhabarjabiyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay rabaan in dalka doorasho madaxweynaha uusan ku soo bixin inay ka dhacdo saacadihii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho kulamo kala duwan ku qaadanayay isla markaana haatanba uga socda kulamo xubnaha mucaaradka dawladda iyo sidoo oo kale xukuumadda ra'iisul wasaare Roble uu hogaamiyo iyadoona laga wada hadlayo arrimo ay kamid yihiin doorashooyinka dalka ka dhacaya shirka 20ka bishan May la filayo inuu dhaco isla markaana u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka mas'uuliyiin ka tirsan golaha midowga musharaxiinta oo iyagu si aad uga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo ayaa qayb ka ahaa kulamadan ka bilowday magaalada Muqdisho waxaana looga arinsanayaa sidii xal looga heli lahaa caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan qabsoomida doorashooyinka kuwaas oo ku qotoma heshiiskii 17 Sebtembar 2020 oo magaalada Muqdisho lagu gaaray madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo mucaarada ayaa kulamadan gaargaarka ah ku yeeshay magaalada Muqdisho iyadoo la isaga xog wareysanayay xaaladda dalka ka jirta isbedelada dhacay iyo dhanka doorashada iyo talaabooyinkii la qaaday waxyaabihii ka qabsoomay heshiisyadii la gaaray xogo muhiim ah ayaa laga helayaa kulankan waxaana ay sheegayaan in xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku hawlan yahay diyaarinta soo dhaweynta wufuudda kala duwan ee ka qaybgalaya shirka madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada kaas oo la filayo in looga hadlo arrimaha doorashooyinka kulan madaxeedka madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo uu ehliyo gobolka Banaadir ayaa waxa la doonayaa in looga gudbo caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan muranka dhanka doorashooyinka iyo sidoo kale waxyaabihii laga dhaxlay muddo kordhintii dawladdu ay samaysatay taas oo lagu fashilmay isfahanka dhanka madaxda dawladda iyo xubnaha mucaaradka ee doorasho wada ogol dalka ay uga dhici karto iyo sidoo kale in isfahan laga gaaro dejinta jadwalka doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxdaba waxa sidoo kale ay ka wada hadlayaan arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay waxyaabaha soo cusboonaaday oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la sheegay in wax door ah uusan ku lahayn shirarka soo socda isla markaana ay ka qayb gali doonaan midowga musharaxiinta iyadoo looga hadli doono wax walba oo carqalad ku noqon kara doorashada oo ay kamid tahay shuruudaha cusub oo ay wataan maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo xubnaha midowga musharaxiinta iyagoona sidoo kale la dalbaday in madaxweyne Farmaajo uusan wax luga ku yeelan kulamada dib u heshiisiinta ah iyo shirarka magaalada Muqdisho ka dhacayba ganacsatada qaadka Kenya ayaa dawladooda ku cadaadinaya inay fasaxaan duulimaadyadii Soomaaliya oo ay joojisay ganacsatada qaadka wadanka Kenya ayaa si weyn xukuumadda Nairobi cadaadis ugu saaraya waxaana ay ka dalbadeen inay soo celiyaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Soomaaliya si loo helo suuq dhan 16 milyan oo shilinka Kenya ah oo si maalinle ah uga soo xaroon jiray qaadkii loo iibgeyn jiray Soomaaliya ganacsatada Kenya ayaa waxa ay qireen in dhibaato weyn oo dhanka dhaqaalaha ay ku qabaan xiritaanka duulimaadyada iyo sidoo kale xiriirkii dawladda Kenya iyo Soomaaliya ay lahaayeen ganacsatada ayaa dawladooda Kenya waxa ay ku booriyeen in ay ka fogaadaan talaabooyinka qatarta sii garin kala xiriirka labada dal oo markii horeba xumaa isla markaana haatan meel sare sii geynaya qaar kamid ah ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen in ay xayiraadda duulimaadyada ay tahay mid sii murjin karta xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya isla markaana loo baahan yahay in dawladda Kenya ay ka shaqeyso sidii loo soo celin lahaa xiriirkii ganacsi ee labada dal u dhaxeeyay oo haddii meesha uu ka baxo ay sheegeen in dhibaato weyn ay ku noqon karto isla markaana ay sii xumeyn karto nolosha ay ku nool yihiin dadka Kenyaatiga ah waxa ay sheegeen inaan loo baahnayn mamnuucidda duulimaadyada waxa ay sii kordhinaysaa isfahan waaga u dhaxeeya labada dal waxaana ay luminaysaa ganacsigeennii ayay yiraahdeen ganacsatada Kenya hay'adda duulista hawada ee Kenya
ayaa iyadu ogeysiis u dirtay shirkadaha diyaaradaha waxaana ay ka mamnuucday dhammaanba duulimaadyada aada iyo kuwa ka yimaada magaalada muqdisho inaysan shaqay karin muddo 3 bilood ah. dhammaan duulimaadyada u kala goosha Kenya iyo Soomaaliya ayaa la joojiyay marka laga reebo duulimaadyada qaramada midoobe ee taga ee iyagu ka shaqeeya howlaha gargaarka iyo bini'aadanimada. Midowga Afrika ayaa ka hadlay go'aankii dawladda Soomaaliya ay ku dalbatay in la bedelo ergeygii Midowga Afrika oo Soomaaliya u soo magacaabay dhawaan, waxaana Midowga Afrika uu ku adkaystay magacaabidiisa Johan Mahama oo Soomaaliya loo soo magacaabay. ururka Midowga Afrika ayaa wali ku adkaysanaya magacaabista madaxweynihii hore ee Ghana Johan Mahama oo isagu noqonaya ergeyga gaarka ee Soomaaliya isla markaana ka shaqeynaya arrimaha cakiran ee dalka. waxaana ay si aad Midowga Afrika uga hadleen diidmadii ka timid dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda taasi oo ku aadanayd in ergeyga la bedelo. Midowga Afrika waxa uu si rasmi u sheegayaa in uu la tashi ka samaynayo tallaabada xigta ee uu qaadayo, hase yeeshee waxa uu walaac ka muujiyay isku dayga dawladda Soomaaliya ay u qaadayso go'aankii uu Midowga Afrika ku caawinayay ee horay uga codsaday madaxweyne Farmaajo. afayeen u hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo ah gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa waxa uu sheegay in xubnaha ururku ay go'aan ka gaari doonaan in Johan Mahama la bedelo iyo in kaleba. arrimahan oo kale gudoomiyaha Midowga Afrika kaligiis go'aan kama gaari karo, waxa uu la tashi la yeelanayaa golaha nabadda iyo amniga Midowga Afrika ayuu yiri afayeenka u hadlay. waxaana uu sidoo kale tilmaamay in madaxweynuhu uu hakiyay kulamada guddiga oo lagu waday inay dhacaan Arbacada, waxaana Midowga Afrika uu cadeyn doonaa kadib kulamadaasi go'aanka laga gaarayo ergeygan. waxaa la ogaaday in ururku uu si aad u taageersan yahay ergeygan ay soo magacaabeen isla markaana ay rumaysan yihiin in isbedel uu ku sameyn karo magacaabistiisa wax badanna uu ka bedeli karo siyaasadda Soomaaliya ee cakiran isla markaana aysan jirin waxyaabo kale oo uu ku lug leeyahay oo uu yahay nin dhaxdhaxaada. intii uu ku sugnaa magaalada Kampala oo uu toddobaadkii ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni, madaxweyne Farmaajo ayaa kulamo la qaatay gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faki, waxaana ay ka wada hadleen arrinta ku aadan magacaabista ergeygan cusub. xiisadda magacaabista ka dhalatay ayaa salka ku haysa dawladda federaalka Soomaaliya oo rumaysan in dawladda Kenya uu xiriir la leeyahay ergeygan, iyadoo dawladda Soomaaliya ergeygan loo soo diray ay ka soo horjeestay isla markaana ay sheegtay in ay doonayso in la bedelo, iyadoo rabta in doorka loo soo magacaabay ergeygan in uu qaado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaana doorkaas oo ah xal u raadinta ismarwaaga siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya. hase yeeshee xubnaha mucaaradka Soomaaliya ayaa iyaguna aaminsan in tani ay tahay isku day kale oo madaxweyne Farmaajo uu ku xagaldaacinayo xal u raadinta ismarwaaga doorashada Soomaaliya ka taagan si kursiga uu ugu sii fadhiyo isla markaana muddo xileedka ka dhamaaday bilo ka hor uu si sharci darro wali ku sii joogo. ugu dambeyntiina maamulka Somaliland ayaa hanjabaad u diray dad ay ku eedeeyeen in magaalada Muqdisho iyo Soomaaliyaba ay ka soo jeedaan isla markaana ka qayb galaya doorashada ka dhacaysa Somaliland. hanjabaad ayayna u direen gudoomiyaha xisbiga Uxud ee mucaaradka ah Faysal Cali Waraabe ayaa soo dhaweeyay hadal dhawaan uu soo saaray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland oo uu ku sheegayay in tallaabo ay ka qaadayaan dadka ka imaanaya ama ka soo jeeda Soomaaliya kuwaas oo doonaya in ay ka qayb galaan doorashada ka dhacaysa Somaliland, waxaana ay taageero ugu muujiyeen musharaxiinta ka qayb galaysa doorashada Somaliland. Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in dadka ajaanibta ku nool Somaliland loo fahansan yahay in ay qayb ka yihiin dadka ka imaanaya magaalada Muqdisho, gaar ahaan beela qaas oo uu tilmaamay beesha Hawiye isla markaana uu sheegay inay qayb aysan ka gali karin doorashada ka dhacaysa Somaliland. wasiirka amnigu waxa uu ku saxan yahay in uu yiraahdo ajaanibtu ma codayn karaan, waana ku taageersanahay ayuu yiri Faysal Cali Waraabe. Somaliland waxa ay leedahay reero iyaga u gooni ah oo ka soo jeeda iyo muwaadiniin codaysa ayuu yiri Faysal Cali Waraabe. hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loogu diyaar garoobayo doorashada la filayo in deegaanada Somaliland ay ka dhacdo, waxaana jira muran xoogan oo u dhaxeeya in doorashada ay ka qayb gali karaan isla markaana ay codayn karaan dadka ka soo jeeda Soomaaliya. waxaana xukuumadda Somaliland sheegtay in xukuumaddu ay joojisay wada hadallada ay la lahayd Soomaaliya oo ay ku tilmaantay kuwa aan faa'iido lahayn. wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waan joojinay waayo faa'iido lagama gaarin ayuu yiri Faysal Cali Waraabe, waxaana uu sababta ku sheegay in ay yihiin dad horay aan u soconin isla markaana mar walba dhibaato lugaha kula jira.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa sidoo kale go'aan rasmi ah ka soo saaray in dadka ka soo jeeda beelaha Hawiye ay codeyn karaan, waxaana uu sheegay in qof aan u dhalan Somaliland uusan codeyn karin. dadka sheegaya in iyagu ay codeyn karaan way iska hadlayaan, sidoo kale dadka doonaya inay codeeyaan oo soo kaxaysanayana way iska hadlayaan ayuu yiri wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland. wuxuu sheegay in dadkaas ay tallaabo ka qaadi doonaan isla markaana ay ku daba jiraan oo ay soo qaban doonaan, waxaana ay sheegeen in ay gabi ahaanba deegaanada Somaliland ka tarxiili doonaan. sidoo kale Somaliland ayaa sheegtay in ay leedahay dastuur iyada u gooni ah oo ay ku dhaqanto isla markaana uusan dastuurkoodu qabin in qof aan ka soo jeedin Somaliland uu codeeyo oo uu ka qayb galo doorashadaas. gudaha daawadayaal warkeed kala socoteen Warsida TV oo naga inta nabadgelyo.